maalintii dhow waxaan arkay live-ka gabo islaantii hadlaysay lahayd nin baan guriga ku tagay gabadhaas ma la yaabay aad iyo aad inteeda isku jiibinayay aad iyo aad haddii lagu dhahdo noloshaada buug ka qor hooyo ekraan ma tusi lahayd lafta dhabarka dhuuxiyo wadnaha dhiiga mara beerka dhaqdhaqaaqa xoogiyo xubnaha dhabi dubaxaya dhidibaan ku taagmaatee hayga dhicin hooyo aragayga dhayahaada iga dhigan hooyo aad baan ku jeclay maasha allah tabaarak allah aad iyo aad baan idin salaamayna saaxiibayaal meel kastoo dadweynaha ka joogtaan Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay ku soo dhawaada barnaamij kale oo gaar ah oo ay caawa marti noogu tahay Yusra Dhamays aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa waxaan ku faraxsanahay caawa inaan halkan ku wada sheekaysan doono codkaagii macaanaana ay daawadayaashu ka dhirgi doonaan insha allah Faadumo aad baan ku salaamayaa aad baan ugu faraxsanaynaa beachka ka soo muuqdo sharaf baan ay tahay aad baad mahadsan tahay waayahay Yusra kulley dee uma baahna barasho waayo dee waa istaqaaniin waa asxaabtaada ka mid yihiin meel walba xidhiidh baad ka wada leedihiin asxaabta qaaliga bal Yusra haddaad dadka aad siira birtay oo tiraahdo Yusra Dhamays waa kolley horta Yusra waa inanta idin soo ag fadhida way kolley anu taariikhda si badan melihi way aad bay wada garanayaan aad iyo magacaygu waa Yusra Maxamed Faarax Hargeysana waan ku dhashay inta ku soo leekaba kana wax ka bartay masha Allah dadku inta ugu badan codkaaga aad bay jeceliin Ramadaan waa lagu jiraa laakiin miisiga weeyaan waxa kulli dambiga leh oo miisiga hadii laga raabo culimada hadii jaraal waxay sheegtaa heestu inay gabay iska noqoto bal caawa intaynaan gaanin qaybaha su'aalaheena kala duwan ee barnaamijkeena waxaan ku oran lahaa ka waran barxabad nabi amaan hadda ku bilaabano hayo diyaar way axmedo adigoo ka maqan dunidani mugeda mawla kugu qoray turaad meerisyada ijile amusiya ciisa dadkoodii madal uga sheege muslimay goortu nagaash maqli mucjiisadade maasha allah tabaarak allah alayhi salaatu wasalaam nabigana iskaga wada salino maalmihii ugu dambeeyay ee khayrka lahaa baan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa daawadayaal inaad ka faa'iidaysataan acmaasha saalixana ilaahay naga aqbalo dhammaanteen Yusra jacaylka hadda ma isku fiican yihiin oo xiriir wanaagsan baa ka dhaxeeya maasha allah horta jacaylka aad baan uga dambeeyaa waayo jacaylku waxaan ku dhashay meel laygaga ma waqna kowde aad iyo aad marka jacaylka said baan uga dambeeyaa Soomaalida inta ugu badan waxay dhahdaan Yusra jacaylka waxa la yiraahdaa hal mar buu dhacaa khilaaf badan baa ka dhaxeeya moogti hal mar buu dhacaa laba jeer buu dhacaa qaarba waxbay yiraahdaan adoo maxaad aaminsantahay inuu inta dhici karo jacaylku wallahi horta anigu waxaan aaminsanahay hadba qofkaan haysta inaan jecelahay xaaladda aan ku jiro weeyaan maalinba qofka kugu dambeeya miyaa aamin wala karna love ku ahay marka miyaanay si kala yara badnaan karin oo dad horta way jiraan ma ogtay hal mar wax jeclaada oo ka oranaya qofkaasaan jeclaano qofkaasaan xumay jacayl kale oo ma doonino laakiin anu taan ka soo horjeeda hadduu yacni qof ka taga ama qofkii jacaylka isku fahmi weydaan qofka wanaagsan baa iman kara jacaylka halkiisa buu taagay ma ogtay markaa waa intayna qaybaha jacaylka ka bixin waxa laga yaabaa hadhow inaynu kuba soo noqon karo weyno qaybo kale oo xasaasiya kala bal qofku marka la jecel yahay iyo markuu wax jecel yahay bal caawana la wadaag والله هرت مركز واحد عشرة ولا لواد كبير بدنت واحد دريمز قف كأنه أديك كل باهي كوني أديا مركز يعني أدواد واحد عشرة هنا ودول قاد بدنت قف كنا بحالات كستو كستو كوس مني أدواد القاد أنا أنا قف كانوا واعين ده لواد ربطها أدي مركز واحد مركز عبرتو حلا ذا يوم قف مركز اللي تعلي هاي بو أديك كيبا كلها في عام أنا والله مركز اللي تعلي هاي أنا اللي تعلي دي مركز وأنا كان دبعتها أنا يبقى dhibaatadana ma doonayo in aniga la jeclaado ma doonayo waayahay marka la jecel yahayna ka waran way ka sii macaan tahay waay marka labadii dhinac baa la isla hayaa Yusreemka jawga ku jirta waa kii
والله دي وديك arkay farxada dhabankayba soo kala dhalaalay Aad mrs xiis way soo dhacday waaye heesta wax ma ka haysaa laftarkeeda bal waaye haddaanan ku dhaafin dhigaaraga jooga oo aanan ku dhiiran dhigiyo udubkiisa dhismaha aqalkeena haddaanan dhabtayda cidlada dhaxanteeda shalay nolol dhaanta dheliga ku ilaawin jacaylka dhexdeenu siduu u dhaboobay aad iyo aad ina maxamed raagin oonu salaameynaa markaa waxaba dee caawa hadalkii waa laynoo soo gaabiyey yusra dhinaca masiirkiisa isku yihiin ma dadka caadiga ee qofkooda markii qof ama wax ka arka dareemaan habiga iska noqdaba mise waa marka ay dadka go-aanka gaadho markay arkaan qofkii ku arkaan wallahi dadkaasana markiiba go-aan ma iska qaataa go-aankayga laakiin waxba kama jiraan weeyaan 1 minute baan kaga soo noqonaya waa inaan qiidiimka tiro qofkii waan ka tagayaa qofkii baa imanaya walaasan maysan haye walaalina gadaa wal cafiisa wan cafinaya ama sii socdaa way marka go-aanka waad qaadanaysaa laakiin markuu qofkaaga ku dhaahdo de khalad bay ka dhacaysa samahay wad maslaxaad qaadata laakiin kaad ku tagi kartaa waa maxay waxyaabaha ku tagi kartaa waxyaabaha ku tagi kara waxa kamid ah naftayda wixii liidaya markaan arko wax aanay naftayda u dul qaadan karin ayaan tanaasulaya jacaylkii wixii aan hayay halkaas aan kaga tagay waa naftayda ii muhiimsan aadiya qofku ma qaadan karo aadiya quruxdaas aad leedahay waxaan kale ku sii weydiin lahaa waxaad moodaaba su-aalaha iyo codku inay su-aalo weysii dhadhamayaan yusra bal aynu hore usii soconay yusri in lala guursado ka war in lala guursado ama inaad qof yacni reerle oo kale inala guursatid imika may wallahi horta qof reerle maan guursadeen oo anigu ma jeclina gabadh layga daba keeno ina walaasheena gurigeeda kuma qabsan karayo in lala guursadana ma jecliyo de labadaba aan isku hayso ma ogid in layla guursado marka anigoo yacni qofkii daryeelaya jacayl siinaya wax kasta oo qabanaya hadduu naa kala raadsado u tagayasna suleeda anaa ka baxaya meesha way kama ogeli ha tago ad leedahay way aad iyo aad baad umahadsan tahay maxaynu bal dhinaca codadka xaggaynu tagnaa halka allaaliyaa ka jeclaada dul istaag way anu heestii hooye ayaan aad u yara jecelahay nafagaraad xumoon gurayni ban gedigay ka tegi gaadhsiinayaa guddi kala shirtaan garu qaadayaa qalbigii gubtaan u gubaabiyaa jacaylkaygan guray godobow ma qabo jacaylkaygan guray godobow ma qabo maasha allah waa yusra imkana xaggaaga maasha allah inkasta heestani aad iyo aad u macaaneyd bal hees kale oo adiga xaggaaga ka imanaysa hilaa xeegada ka muuqda hogasha roobkee daroortay ahayaankiyo geedigayga hadumaad u horseedi dooga naftaa haybintaa ku daashay hadumaad hiilkeeda noqon hogaanka ku xidhan qalbiga halbowlahan ku haraadan hadumaad hadhac biyalageyni qobsii marajadaan u daayay nasiibkan ou hambaliyeeyey hamiga laabtayda iyo hankaagu inuu midoobo alluhu isku keen hibeeyo u horshi ducada habeen baadh hadumaad hibashada kalgacal hareerta ka qaban dhankaaga hal haynta hamuta naftaydu hadmay farxii hoygalkeena hadmaan noqon labaan isurin hantida dhiiga isu shuba halista ka midaysano hadduu mid hantaaqan yahay midkii kala heeran yahay maasha allah aad iyo aad baad umahadsan tahay hadday borogramkeedan usoo laabano isray maanta adigu waxaa tahay qof aad iyo aad u dhalinyaraa social mediahii dee maanta marka de madaxa saa u kacdayba tiktokgii social mediaba dee la hana qaaday oo la qabsatay
nolosha social mediaha ee yani xidhiidhada ama se reeraha isqabo kale in la keeno adu seed u aragtaa wallahi horta anigu waan kasoo horjeedaa waayo waan soo arkay nolosha social media inaad qof soo dhigto ood boonbooniso wax faa'iido horta kuma dhex jirto noloshii guriga noloshii khilaafka wax kastaba meesha bay imanayaan qofkii markaad isku cadhaysantiin markaad jeceshin labadaba waa la kala ogaanaya marka anigu aad baan uga soo horjeedaa qofkayga inaan soo dhigo dadka soo dhigayna taladan siinaya waxa weeyaan inaydaan qofkiina qarsataan waayo wax kasta oo qurux badan qarsoodiday ku qurux badan yihiin tusaale ahaan oo kale waxyaabaha ka iman kara ee haddii imika dad soo dhigdhigaaba jira dee aynu aada u wada garanayno qoysas kale waxaa jira iyaga laftirkooda dee ku baaba-ay aynu aada u garanayno dad dee midiyaha nagula jiro isla isticmaali jiray baa jira oo aada u fara badan welibana marka dadka iyaga laftirkoodii inay jacaylkoodiiba malaha ka tan badanayo inay nala wadaagaan ayay iska jeclaysanayaan taa laftirkeedana bedelkeedana dad isla jecel baa jira oo iyaguna commitee qurux badan u qora marka burburka ugu weyn halku ka saameeyaa bay kula noqonaysaa horta ishay noqonaysaayo qof aan yani noloshan adigu haysata aan haysan ayaa jira ayaa odhanay allah adigu ma qofka ma saa kuu noqdo waxaa laga yaabaa inuu qofku kaaga soo wada qaado marka ha iska qarsadaan baa laleeyahay dadku noloshooda iska hayso xidhiidhadana hala qariyo guurkana hala qariyo xitaa laftarkiisa marka qofkii isguursadaan bes yaan la soo dhiganba jacaylku yaanu ka tan badan waxa dambe aada noo keenaysa waad haydh anigu may waan qarinayaa nolol damboon anigu leeya arki maysaan soo dhigi maayo inaad dusha ka aragtaan isu nolol bay leedahay ama qofkaasi isguursadeen aada mooyaane laakiin ma soo dhigaya insha allah social media waxyaabihii kula yaabka badnaa aad ku aragtay haddaad nala wadaagi karto waxyaabihii kula yaabka badnaa ama bisha barakeysan ha lagu jiro ama intii ka horreysay ama intii wallahi social media intii rabadaantii dhow waxaan arkayay live-ka gabo islaantii hadlaysay lahayd nin baan guriga ku tegay gabadhaas ma la yaabay aada iyo aad inteeda isku jiibinaya aada iyo aad marka wakaa intaasaa kugula yaabka badnaa waayahay yusri imka saaxiibtinimada maxay ka aaminsantahay saaxiibtinimada wallahi horta anigu xoog baan u aaminsanahay aan haysta saaxiiban bayaanan haysanay saaxiibtinimadu waa shay aada u qaaliya waayo waxaanad walaalka ama hooyada ama reerkiina aad la wadaagi karin bad saaxiibkaa la wadaagaysa dadkuna saaxiib ma wada noqon karaan qofka sirtaada kuu qarinaya ee yani aad ku nafisayso bad saaxiib ka dhigan karaysa aada iyo aad marka saaxiibtinimadu waa hawaarto aada iyo aad haddii lagu dhahdo noloshaada buug ka qor hooye ekraan ma tusi lahayd hooyaday ha wallaahi waan tusi noloshaada haddii buug lahayd ka qor waayo noloshayda wax kasta oo kusoo biira waayo anigu maan ahayn dadka yani intay saaxiib yeeshaan asxaabtooda ku nafisa hooyaday baan u tegi jiray waxaana igu dhacay kana igu soo biray qofkana bartay marka noloshayda wax kasta kama qarin waan ogaa noloshayda wax iyada dhibaya inaan ku jirin macal xidhiidhkaaga macal arrimahaaga wax walbood u sheegi jirtay sisan soo agdhigi lahaa halkan oo ka salaamaya maasha allah tabaaraka allah anaguna waan salaaminaa fanaanada weyn ilaahay baa weyne ilaahay cimriga iyo caafimaadka baa ku dheereeyaan leenahay anaguna si khaasana taageera haddii aan ku odhan lahayn caawa anaga asxaabtuba maadaama hooyada friendtiin heesu qaad ama saaxiibtinimo ha noqoto ama tii hooyada jacaylka laftirkeedaba ha noqoto wallahi horta hooyaday abaalkeeda ma gudi karo halkan kuma soo koobi karo waayo qof nolol aada u adag igala soo baxday ilaahayna hay daayiyo waxaan u qaadayaa lafta dhabarka dhuuxiyo wadnaha dhiiga mara beerka dhaqdhaqaaqa xoogiyo xubnaha dhabi dubaxaya dhidibaan ku taagi maatee hayga dhibin hooyo aragayga dhayahaada iga dhigan hooyo aad baan ku jeclay heestaas anu markaa dhegeysto wallaahi waxaan ku yidhi waa maasha allah iyada laftarkeedu adinkaaban igu jeclaaday markasta waa isla soo dubtaan moogta maasha allah ilaahay hooyooyinka haynoo daayo cimriga iyo caafimaadkana ha u dheereeyo haddaan ku odhan lahaa qofka aad imika xidhiidh wadaaga tihiin ama sedigay yani halkan fariin yaroo qurux badan oo jacayl oo dardaaran maxaa uga diri lahay waxaan uga dirayaa horta wallaahi kolley ma soo koobi karo oo qof xaalada aada u badan igala gudbay isaguna uu ogyahay aniguna waan ogahay maasha allah marka waxaan leeyahay ilaahay abaalkaaga jannaha ka dhigo intaa haddaynu kaga nimaadno heesta hooyada
qalbiga xoog noo sii xanuunaya marka waa inaynu xagga jacaylka u gudubno Yusra hees xamdo kuwin leedahay baan qaadayaan waay ma sha Allah anigoo lilaahi yaa lilaahi oo jecel lamaaniyo ina gaadhna liibaan adiga ku loo faray ruux kale u leexdo lala himiladeeni anuu libintii caashaqa liibaan ka gaadhay adna laacabeenta kaluu loo hasiidayn maasha Allah Yusra gabagabadii ma iska joognaa waanaan ku mahad celinaynaa Yusra dalxiisyada waxa ma isku fiican yihiin wallahi saaid waay xagga jeclaan lahayd inaad ku dalxiisyada tagtid imika halka niyadu ku hay niyada ku jirto waa Boorama meesha saaid baan Boorama dhowr jeer adoo tagayo Boorama oo soo qara si qurux badan wallahi xitaa ii soo dhaweeyay maasha Allah aadiyan ma garanayo de waxaan ku arkay gobolka aqoonta saaid baan u jeclay dad soo dhaweyn wanaagsan weeyaan maasha Allah marka halkaas aad iska ila iidana waxa laga yaabaa inaad waa digada xarkiisa maanta laba maan istaxaan israacna way Yusri fanaaniinta dhexe iyo fanaaniintan hore ee koobay bal haday hal iyo laba ka taageerto inamada iyo xagga hablaha wallahi horta fanaan xoog u dhigeysto Cabdikariin Alsha way heesisan saaid u dhigeysan jiray ilaa biri hore ilaa imika way sidoo kale Iskalaaj aadiya Iskalaajna heesisan saaid baan u jecelahay way labada fanaan haday inaan ku jiri lahayd waxaan lahayn imika heestan ugu luqay laakiin in kuma jirta xagga hablana xagga hablaha de hooyadii aadiya iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo Rugeeyo kale bal way xagga fanaaniinta kale adiga lafta ku dhageysatay hablaha hadaad mid inooga soo qabatid Yurub heesay leedahay baan qaadaya way ragaba halyeygan ka doorto adanku heesaya hiiga waan kugu hayaa hadiya gorbaan adiku haybshaa araadkii soo mariyo halista caashaqu ii baday waxaan ku halmaamilaa amaba hiiligu filan inagu hoy wada galne dhibtuba haynaga hadhe midkeenba harirtu ka jiro hagoogta intaan ka qadno sidii nirigiyo hashe inagu ma isku soo hilowna maasha Allah dacaawo waxaan ka baqaynaa inaan idhaahno barnaamijku ka socdo laakiin suurtagal maaha 10 dabna lagu jiraaye asxaabta qaaliga maxay ku macasalaameynaa waxaan ku soo xidhnaa su'aasha ugu dambaysan ku weydiinayna waxa weeyaan labada qof ee kala fog ama labada qof ee wada jooga keebu xidhiidhkooda aad iyo aad u qurux badan yihiin ma inay kala maqnaadaan mise in la wada joogo may wallahi in la wada joogo oo labada qof haday kala maqayn khilaafkooda saaid u badanaya isma fahmayaan shakiga badanaya marka in la isag joogo ayaa qurux badan qofkaaga meelaha ka ararkayso wuxuu sameeyay wuxuu qabanaya laqaati aad iyo aad nolosha marka dhawaanshahay ku qurux badan taana qof iga fog ma jecliba qof aan arkayaan doonaya way ma sha Allah maxaan ku soo gabagabeynaa asxaabta kulli saa kaga tagi meesday ma saa kaga tagi maayo hal hees baan ku soo gabagabeynaa jacaylku guud furay kuma naxada soorto qalbina barku yaala niyadu maladaye ruuxaad unugushood noloshiisa waydana aragii sanoriyo awaa kugu nasteexe naawilo adduunyada nasiibkaaga dhowr nasiibkaaga dhowr maasha Allah Yusra aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa mar kale waxaan ku leenahay soo dhaw waxaan rajaynaynaa in lacagta lagu soo badiso taageerayaashaadu hadday yiraahdaan soo celi asabmay waa loo imanaya markii ugu dambeysay ma noqon barnaamijkaaga aan ku soo noqonayaa way aad baan kugu mahad celinaynaa daawadayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaan ugu talagalay inaad markaasi nagula caweysaan
asxaabta cusub ee nagu soo biiraysa aad iyo aad ba mahadsantihiin halkan kala soco barnaamijyo joogto ah oo xiise gaar ah xambaarsan oo idin xiise gelin doona iyo kuwa cusub oo kale oo soo wadno insha Allah rabadaanta kadib tan inta isugu iman doono programka xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo